waxaan aad iyo aad uga xumahay xariga walaalkay Bilaal uu ku xiran yahay Somaliland. waxaan maqli jiray rag walaalo wax u dhaama ma lahan Somaliland dadkooda iyo dawladoodaba. waxaan ka codsanaynaa in ninkaas dhalinyarada ah majaajilistaha ahaa ardayga ahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo dunida dacaladeeda ku kala noolna uu ahaa role model la sii daayo oo xurriyadiisa dib u helo. nin habari dhashay baa la yiri hal ma seegi waayo maqaldamo waa Ilaahay, balse Bilaal wuxuu marayaa ciqaab uusan u qalmin. qof walba oo fiidiyogan gaar mid baan u sheegayaa adigoon xumaan caloosha ku haynin cidna aan ugu qabin xariga Bilaal kaliya si niyad ah ugu duceey. siyaasi walba oo Somaliland ahna mid baan u sheegayaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, xarig iyo xoogna xal ma ahan. xurriyaduna waa dunida shayga ugu muhiimsan. mahadsanidin. السلام عليكم صحابتي horta subax wanaagsan marka hore soo dhawaada asxaabi horta waxaad ogaataan wali in uu xiran yahay walaalkeena Bilaal oo ilaa had qof oo ka hadasha ma jirto asxaabtiisa iyo familkiisa ahaan horta aniga Soomaali ahaan reality qofka waxaan jecelnaa markuu la joogo oo naga qosolsiina laakiin qof markii dan qabsato ama dib qabsato aniga waa ka tagnaa. horta asxaabi adiga habeen walba hurdaysi waxaad ogaataan Bilaal familkiisa inay yihiin waa ogtaa hooyo Soomaaliyeed gaar wax kale waa ogtaa in hooyooyinkan ka maqnaan إلا هذا من كلامات بلال إلا هذا وحرية هاي وحكي الأم حرنا وحرية أنا كصومالي أهان وحرية هاي أنا كنا أنا كصومالي سنة ولا عليه الرسومالي ولا عليه الرسومالي وحكي عصلة إن ولا كان بلال إنه سوديان وما سنتي مركا ولا عليه الرسومالي أنت عشان شرك بلال أو سود بلال أو سود وما سنتي هو إننا هوية كدم بيسي بيسي حبيتي هوية كدم بيسي هي إننا نقنن واجب كينا وين دولة الصومالية سعود كير والله نكبقنا أنو إستعمل وهو الصومالي وهو ذاك بري أبيتنا كبدا عيسى أما إستعمل لما أنتهنا هنقرب إستعمل بلال حنا الله مع فري فضلا دولة الصومالية هو ذاك الله مدحوينه وهويدا هوي لمدا qof kasta oo dawladda ku jira waa hooyada oo kale hadda lagu sii daawin keena. السلام عليكم انت سماع جعل شر مهيل ولا عاود قربكي فديا فرحد انه wada tahay su'aasha shan rabo shan mehil wala ku weydiiyo adigu ka faa'iideysanay second diska oo TikTok soconayo waxay tahay arinta Bilaal Bulshaawi iyo arinta adiga Hargeyso ma taqaana iminka ka dhax shirarka iyo waxyaalaha kale oo hiil wala barnaamijyada waxaan leeyahay markuu waad horta barnaamijkii waan wadnaa qodobka labaadna waxa weeye Bilaal duco nooga baahan yahay inaynu u duceyno oo maaragtay ii sheeg sidoo Ilaahay jeelka uga saari lahaa sidii noo sheegayna waxaan leeyahay qaranka ayuu khaladka galay waxaan loo galayna uu sameeyay waxaan kaloo leeyahay arinta saddex yaaciyo ah in aanu mission geliyay walaalkay way Puntland baa ku soo dhaweeyay aanu mission ma gelin ogaado dad asaga u dhawaaba mission geliyay oo maaragtay ii sheeg macnaha ay aad isku ahaayeen isku magaalo ayaa mission geliyay isku deegaan ahaayeen marka ducaa inooga baahay hal joojiyo waxaan saddex yaaciyo oo magaalada dagaalka dhalinyarada runtii aad ugu xumaay saaxiib sare Bilaal Bulshaawi xarigan uma qalantid wallahi xaqiiqdii waxa ku leeyahay saaxiib sare free Bilaal Bulshaawi insha Allah lagu soo deyn doona niyada khayr u sheeg garabkaaga nahay ka tiim cabsal ahaan aniga ku hadlaayo magac Diyaabi waa ka xunnahay insha Allah lagu soo deyn doona niyada khayr u sheeg Hargeysana kulay wax ma dhigi kari laakiin waxa leeyahay waxa gasheen qalad mar damba qaladkaas oo kale ha galina waa qalad weyn Soomaalinimada qalad ka gasheen qof dalxiisna ku maado wadankiisa dhinac ka soo booqarawa ayaa xirteen aad ugu xumaa suuri wallahi. السلام عليكم رير تيك توك aad aan idin salaaminaa waani walaalkay Cabdiraxmaan Furinle oo wada garanaysan badankiinu marka hore soo fiidiyogan Soomaaliyeed oo dhan wada gaaro loo saar maxay heeday waxa jirta maanta ay tahay Isniin gelin hore waxaan u booqanay saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa taas oo uu joogo walaalkay Bilaal Bulshaawi uu ku xiran yahay waanu soo booqanay waana u tagnay xaaladiisu caadi bay ahayd iska fiicnaa ma sha Allah alxamdulillah dib uu qabin kaliya ta xaaladda kiiskaas baa lagu yeeri jiray ما جرتو ها إن شاء الله سجن ولا سودينيا إسلا بريد حد كم مقطع والله واحد بلايو يعني أنا كم مقطع ما يسنجري ها الحمد لله بتاعنا الله إن هاي تهذا كله واحد شفت إسلا بريد ولا سلاسة ده في ذيك واحد لقيه وين مرة لا بتعوته إسلا بريد ولا سلاسة ده ومحكمة اللجينية أرنتي سوي إن شاء الله بش الله بلا تنقل دونتو ها بش الله بلا تنقل دونتو إن شاء الله نسودين دونا هو شيء سوا إن تقدر تقول ما تاني رجينا ولا نسودين دونا نيدا خير وشيء أنتي نكلاين والد كينا نيدا ودي صدقك قرنا يوم أو يعني كده يحمان